dadka muslimiinta ah daaqa iyo biyaha iyo dabkaba shuraakay ku leeyahay cidima sheegan karto adigu meesha difaacan kartay meesha lagu yiri difaaca aad leedahay waa maxay de waa beertaada iyo gurigaaga banaanka ma lihid dhalinyaro dagaallo ha u noqonina xaabe dadkii dadka oran lahaa war hal la joojiyo waxa noqdo اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف مبتلانا بسم الله ugu horreyn waa idin mahadnaqaya marka labaad waxaan isku dayayaa war kooban inaan idhaahdo oo ku saabsiisan mowqifka muslimkii markay fitanka iyo imtixaanaadku dhacaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waalmu'minu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim wuxuu nabigu leeyahay qofka muslimka ahi waa qofka dadka kale ee muslimiinta ahi carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan mu'minkuna waa qofka dadka kale ay ku aaminaan dhiiggooda iyo naftoodaba sidaa ogeed ayuha alaxiba saxaabo badan baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka soo aroorisay macnaha xadiidkaasi uu tilmaamayo waxaa ka mid ah xadiiska saxiixeynka ku yaalla ee nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih waalmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muslimku waa qofka muslimiintu ay gacantiisa iyo carabkiisa ka nabad galaan muhaajirka na waa qofka ka hijrooda wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka nahiyey maalmihii ugu dambeeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siiba xajat alwadaac oo kale dadkoo aada u tiro badan oo 100 iyo dheeraad kun ah ayuu nebigu wuxuu ku yidhi jariir ibnu cabdillaahi albajali saxaabigii la odhan jiray dadka aamusii markii ay aamuseenna wuxuu ku yidhi laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga dabaday shaqadii gaalada ha ku noqonina buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ah in badhba badhka kale uu qoorta ka gooyo ama madaxa ka jaro ayuha alaxiba wakhtigan ama casrigan aynu joogno fitanku waa badan yihi siiba dhulka muslimiinta waxaad mooddaa muslimiinta dhulkiisa oo dhan in la ysku dilayo soomaalina muddo iminka 30 sannadood ka badan ayay dil waday unoo iyadu isdilaysay ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay baryadii ilaahay uu ka aqbali waayey inay ka mid tahay oo nebigu wuxuu yidhi 3 shay baan ilaahay weydiistay labaa layga aqbalay midna laygama aqbalin ilaahay waxaan weydiistay buu nebigu yidhi inaan ummaddayda abaar dhammaantood guntirta inaan lagu itixaamin dabeetana waa layga aqbalay buu yidhi waxaan kaloo weydiistay inaan daadad iyo duufaanno qaadin oo aanay qarqoomin dhammaantood ilaahay waa iga aqbalay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan kaloo weydiistay buu nebigu yidhi alle ummaddayda inaan ilaahay iyaga isku itixaamin waana iyagu isdilin famanacaniiha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laygama aqbalin taasi buu nebigu leeyahy muslimiinta dhexdoodu markaa in badan bay isdilayeen laakiin fitanku waxay soo bilaabmeen markii cumar la dilay waayo waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla uu tilmaamayo saxaabada oo fitnooyin iyo imtixaano ka sheekaysanaysaa wax sheegtay markii dambe uu cumar yidhi maya kuwa idin weydiin maayo ee waxaan idin weydiinayaa fitnada tamuuju fi lbaxr kamaa yamuuju lbaxr yani fitnada tamuuj kamaa yamuuju lbaxr
sida baddu hirarka u kicin doonta fitna istaba joogta xudayfa ibn al-yamaan oo nabiga la fadhiyay calayhi salaatu wasalaam cumar la fadhiyay radia allahu canhu ayaa wuxuu yihi cumarow adiga ku soo gaadhi mayso taasi waayo adiga iyo fitnadaasi albaab baa idin dhexeeya buu ku yidhi cumar su-aal buu weydiiyey oo wuxuu yidhi ayuksaru am yuftax albaabkaa noo dhexeeya aniga iyo fitnada miyaa la furayaa mise waa la jebinayaa waxa lagu yidhi waa la furayaa waa la jebinayaa haddii la jebiye buu yidhi cumar idan laa yuqlaqu abada albaab aan weligii xidhmin buu noqonayaa ayuha alaxiba albaabkii wakhtigaa furmay kolba ama wakhtigaa la jabay kolba inuu leegyahayba fitnadaasi muslimiinta dhexdooda way socotaa laakiin waxaad moodaa wakhtigan dambe soomaali inay iyada si gaara u daashatay marka meel dabku ka yaro damaba meel kalu ka qiiqayaa dhibtu weli waa taagan tahay asbaabo badan baana keenay asbaabta waxaa ka mid ah asbaab qabaliya iyadoo dadku qabyaaladii intay kor soo noqotay reera laysu hayo waxaa ka mid ah asbaab siyaasiya iyadoo qadaaya siyaasiya lagu wada muransan yahay waxaa ka mid ah haymana khaarijiya dad dabadeed oo gacan ku leh waayo isticmaarka nidaamkiisu waa fariq tasud waa qaybi si kale u qaybsami maayaan haddaan madaxa laysu gelinindi waxaa ka mid a baynu leenahay dacfi qiyaadiya ku dhacay hoggaan liita ama aan mukhlis ahayn ama hoggaan dowladeed ha noqdo ama hoggaan bulsho ha noqdo ama hoggaan culamo ha noqdo dadkii hoggaaminayay oo mala iyaguna aan mustawihii joogin waayo mashaakil badan marka ay dhacayaan wax fudud baa loo haystaa marka dagaalada la oogayo wax fudud baa loo haystaa hadhowna waxaa la yidhahdaa sidaa maan moodaynin tusaalaan idin siinaya kii saxaabada dhex maray ridwaan ullaahi calayh saxaabadii isdishay maxaa dagaalkoodu ka dhacay cuhmaan baa la dilay radia allahu canhu dabeetana cuhmaan niman la reer ahaa ayaa waxay yidhaahdeen dhiiggiisii baanu doonaynaa dadkii cuhmaan dilay in loo soo qabto calina ra'yigiisu wuxuu ahaa bal horta fitnada ha la nabo oo waddanku markuu xasilaynu waxaa ka xisaabtami doonaa mayse aqbalin waxay yidhahdeen iyagoo lasoo qabta mooyaane waxba islaaxi maayo dagaalada taqaaneen ee saxaabadii dhex maray ayaa dhacay aljamal iyo sifayn iyo xuruubtaasaa dhacday tiro badan leh akhiiran mucaawiye oo raadinayay dhiiggii cuhmaan baa loo dhiibay madaxnimadii laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan mucaawiya nimankii ma soo qabto ma laaye waa maya markii loo dhiibay waa ray arkay arrintii inay intii ka ballaadhatay waa la ilaabayba qoladaas soo qabashadoodii iyo wixii ka soo hadhay ee bal waxaa hadhay sidii loo islaaxinayuunbaa lagu mashquulay waxaan uga dan leeyahay dhibaatooyinku marka ay bilaabmayaan dadku way la fududay meel dhowna waa laga arkaa markase ay hadhow ballaadhato waxaa la yidhaahdaa sidan lama moodaynin waxaani noqonaya haddaan sidaa moodayno wax lama sameeya haddii sidaa la moodayo waxani ma dhaceen wax allaaliya waxa dhib jirana hal uunbaa u sababa marka la isku soo wada duuduubo xadiid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 5 shay oo dhici doona ilaahay baa ka magan galay idinkana waxaan ilaahay ka baryaa inaydan soo gaadhin shantaa uu nebigu tilmaamay ee saxaabada leeyahay 5 ida btuliitum bihinna waacuudu billaahi an tudrikuuhunna hada uu tilmaamay qodobka inaga khuseeyo quraan soo qaadanaya markan wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي بلنكيس يبلنكي رسولك مبريان مسلمينته إلهي وحد عيسين عدو جودا أنت القصة اللي ده وحق عنته هذا كجرا وقاطه ما أنت مسلم أردن وتاجن أيارك يسمى غزوحي كدعي مسلم أردن ما أركيه أيا قالوا أردن يسقط تكتي ولا ليني كوا مركي نكني مادنه وحنا بيقول إيه دتك مسلمين تا دتك مدح ذواه مدح ذو أما مدح السياسي ها هاتو أما مدح ذنقك ها هاتو أما مدح ذا intellectual كي علماء ذي واحد وانا هذا كواسي هدي أنا يدتك كحكم من إلهي كتاب كيسة وأنا خير كهالكاسي كرادنين ما حد عيب نقول إلا جعل الله بأسهم بينهم إياك با إلهي سبحانه وتعالى نبتا نحدود كينيا مسلمين تمركي كتاب كي علم الله اسكندقي إياكم باب الله اسكو يتحامو مسلم بلقوينيا دلال كويس لقوينيا ودن كستا قديسة ويسا سيلقوينيا قبائل كويس سيلقوينيا إياكم باب مدح اللي يسوق لينيا وأنا كي آيات القرآن إلهي كنت المامي dadkoo madaxa la isu suraa inay nooc ciqaabta ilaahay samada ka timaada la mid tahay qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shay'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ilaahay wuxuu leeyahay alle wuxuu awoodaa inuu cadaab samada ka keeno balaaya samada kaga soo degto wuxuu kaloo alle awoodaa subxaanahu wa tacaala inuu xagga hoose idinkaga soo saaro dhul gariir iyo fulkaana iyo waxay baabi'iyeen dhulka laga keeno waa laba nooc cadaabka kamida mid saddexaad buu aayada quraani sheegaysaa oo ah waxa kale oo ilaahay awooda inuu cadaabka ka dhigo in idinka madaxa la isku geliyo oo badhka kale qadhaadhkiisa u dhadhamiyo idinku ay cadaabtaan in idinku la isku keenay taxaamo ayuha alahibba yariya weyn ba waxaynu leenahay fitanka waa maxay mowqifka qofka muslimka ah maxaa laga rabaa qofka muslimka ah madaxdii garanay kuwa garan dadka caadiga iyaga maxaa laga rabaa qof kastoo muslima maxaa laga doonayaa qofka muslimkii laba mid uun waa inuu yeelaa mid saddexaad ma jirto fitankaasi markay dhacayaan ay dadka muslimiinta isdilayaan in silaax laga dhex raadiyo ama maahe inuu fitnada isagu keeni cizaalo sideedaba bini aadamku hadduu isqabto shareecada islaamiga saddex shay bay u jidaysay ta gaaladuna saddexdaas bay jidaysay ka koowaad waa forgiveness waa alcafw waa in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho cafwigu in la iscafiyo waxaadii uu kugu qabsaday qaado anaa aakhiro ilaahay ku hadhaya waa waddo bini aadamku ku dhammaysto wuxuu isku hayo ka labaad waa islaax compromise inta la wada fadhiisto in cidiba wax ka tagto oo meel dhexal la isugu yimaado shareecaduna waa ogoshahay qaanuun gaaleedkuna wuu ogol yahay bale kuwa maxkamadu waxay yidhaahdaan looyaradiinaanu bal isu dirayna horta inay heshiin kartaan dabadda kusoo heshiiyey haddii labada looyar iyo dadka is hayaan ay arrinta dabadda ku dhammayn karaan qaadigu wuu aqbalaa wixii ay ku dhammeeyeen waa tii gaalada deeta islaamkana waynu ka warramayba waa waxaynu u soconno taana waa la waayey qodob saddexaad baa jiro shareecadu iyo ta gaaladuba ogoshahay waa in dadka loo gar noqo oo ciddii gar la garta la siiyo ciddii gar darana la yidhaha waad gar daranta
أما مسلمين استلاه ما لكم جردو هدين نقطين مسلم كو استلا يوحى أذيك كسارا محويي وهي علماء يدهدن والعزلة وإن فتنة كفوقاتد إن دتكو اسقبطاه نولش كمته لكن دتك مدح dhaqameedka ama siyaasadda ama maamulka ama culimada way dadka sida qiyaadadaasi u maareeyaan bay ku xidhantay ولذلك عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدو دقال بلو سعودو دقال وجري يلا بوي العال بيودو ولا قلنا سنة يلا بوي مد هراتيي دبتنا واسماعين وابي سوق الشذين والصحابة يوقع شنيا مدنا أنصار بوقع شذين مدنا مهاجرين بوقع شذين يا للأنصار يا للمهاجرين بكر عظي النبي عليه الصلاة والسلام بمقلي ويقول ما بال الدعوة الجاهلية وروام حي يرمدن تي جاهلية دا هذا رياض الوهد لا يوفر سو رياض وأنصار مهاجرين بلا سوي يرنيا أنصار نمدي مهاجر نمدنا ورياض أمانة الإسلام كقوي القرآن كقوي الله وهذا كي النبي جو قرقاري يهذا كي النبي جو هجرودي وقواسي لكن مركي تين مسلم لا اسكو دير درادد waxan loogu yeerayo wuxuu nabigu ku tilmaamay inay tahay dacwo jahiliya da'uuha fa innaha muntinna bunabi war ka taga wa muntinna wa uraysa abu nabi alayhi salatu wasalam waxani waa quruna iska daaya mid fitna wala ah oo munaafiqa wuxuu yiri ma maanta sidaa yeeleen هدي أو قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل مقالة دي مدينة هدين نكون نقرنه والله يسأخك الدون أبو يري هدان عدة اللي إذا تم مقالة لقى صاري وأنا قابل رقا هين وياه وأنا مدحي وين تبو كم دينك كان بل إيه وننكي سلطان لماذا لو أمامو ديي مركو نبي محايد مقالة مدينة سوق لي أنصاري جاهلية دودي أو سي خزرج انت استشي ودتكي ووينا يورد من مردين أي مرد به شيء شان سنة ضد مدة مركي استليين به شيء سكالين دبتنا وحل إدام بغر سما يصنع إن وضع مامولا بغر نمدي عبد الله بن أبي بن سلول بالله تاج كاللو تولي يضو الله وضوض أبو النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام مقالة دي مدينة هاي دبتنا دتكي إسلام كي قالوا إسلام قال الراعي waxa uu arkay isagu nin siyaasi iyo kursigiisa la dhacay inuu yahay oo muslimiintan cusub ee meesha timi inay kursiga ka qaadeen marka chance kasta isagu uu raadinaya oo dadka madaxa isu galiyo dhibtani markii ay dhacdayna wuxuu yidhi waqad facaluha mataasay maanta yeeleen madiinaha la taga buu yidhi cidda magaca leh ee casiiska ahi sharafta leh way saari doontaa buu yidhi kuwa dulliga ah نبي قال له يما عليه الصلاة والسلام وفرصة عضده مركي هو رسيبه ماري نبيه نين كان وركيسي مركي الله شاغينا صحابة ويما واحد يا رسول الله كان ندله وهذا منافق نين كان وحاكو هضليه هل الدلي بيد هذا وحنا نبي هو يريد دعوه اسكدايه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ضدك دريدك هلا كوشيا كيسر ما محمد انتي راعدي بقول لا يي اسكدايه بكو يري النبي عليه السلام يدو لوغي انه منافق يحي يدو لوغي يحي انه دب وضو يدو قران كسو دغاي دبتيسا ايا هدنا قياده النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحو غاري ان لودي كرو هلكي مجتمعه وهي نكن هدو قيليه waxa laga yaabaa dad caamay inay raacaan waxa laga yaabaa islaamka ba in la dacayeeyo la yiraahdo maxamed alayhi salatu wasalaam dadka intii la socotay buu laayay oo wuxuu dadka raaca buu yiraahdo waad xujowday sida ogeed wuxuu dhidacbu iska daayay ayuha alhibba mashaakilku wuu dhacaya laakiin maarayn buu markasta u baahan yahay in la maareeyo ودتك أهل عقلك هما هي ورينا الدجال كسي ماريانه وين يتلك له
oo ay ku maareeyeen waa inay la yimaadaan maxaa ka mid ah markii la yimi meesha iyadoo madiine la joogo markii guriga nebiga wax laga sheegay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa gurigiisa wax laga sheegay bulshooyinka sida loo baabi'iyo waxaa ka mid ah isqaatu rumuus in dadka hoggaanka u haya la ceebeeyo markaa kala dambayntaa lumaysa haddii dadka madaxda dadka u ah ama hoggaanka u ah ama qiyaadada u ah ceebtoodu laga warramo la faafiyo la tiro badiyo la sheego idan waxay noqonayaan dad aan kalsoonidii dadkaa lumaysa mar hadday kalsoonida dadku luntana cid raaci mayso waa siyaasi ay ku soo dhaqmi jireen munaafiqiintu weligoodba munaafiqan aan sheegaynay cabdillaahi ibnu ubay iyo koox la mid ah ayaa waxay sameeyeen xaadiثatul ifkigii macruufka ahaa caaisha radia allahu canha iyo saxaabi bay yidhaahdeen xumay sameeyeen ilaahayna saxaabadaas waa la tajribeeyey bal sida ay yeelaan bil baan waxyi soo degin masaladan ka warramaya magaaladii madiina way isla aguugtay warkii dadkii waa wadwaday barh baa dadkii run u qaatay warkaba aad buu u tiro batay waa qisada in badan ka maqasheen culammadu oo idin sharxaysa laakiin maxaan uga dan leeyahay masaajidkuu nebigu yimi dabeetana intuu mimbarka fuulay buu yihi yaa macshara almuslimiin man yacdirunii min rajulin qad balaga aadaahu fii ahli beyti muu odhan hebel yaa iga qabanaya wuxuu yidhi war nin yaa igala hadlaya dhibtiisu ay gaadhay gurigaygii xataa wuu awoodi karayay nebigu inuu yidhaahdo kaa soo qabtoo dila mar horaa la dili lahaa laakiin bal inuu si kale u maareeyo qadiyaddu tijaabinaya aan dilka lagu degdegin markaasuu wuxuu yihi war yaa iga qabanaya nin dhibtiisu ay soo gaadhay gurigaygii anigu gurigayga iyo ninkaa saxaabiga wax laga sheegayba waxaan khayr ahayn kuma ogi anigoo la socdana mooyaane gurigayga muu soo gelin sacd ibnu mucaad qabailkii meesha degi jiray qabiil odayadoodii baa istaago wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu reerka yaga yahayna sheeg annagaa dilayne hadduu reerka yahay kalena nafar annagaa soo qabanaynoo dilayna odaygii suldaanka qolada kale u ahaa ayaaba xanaaqay sacd ibnu cubaada baa xanaaqay muxuu ka xanaaqay ninkan le reerkii iyaga hadduu yahayna waa dilay reerka kalena noo sheegun annagaa isagana laftoodana wax ka qabanayne ayuu ka cadhooday dabeetana wuxuu yihi kadabta wallaahi been baad sheegtay maadaa taaban kara buu yidhi markaad ogaatay inuu reerka iyaga yahay ayaad warkaa ku hadlaysaa buu tilmaamaya dabeetana usayd ibnu xudayr saxaabi kaloo ay ka hore ilmaadeeriyiin ayaa istaago o yidhi waa runtii wallahi adaa been sheegaya hadduu kaa iyaga yahayna waa dilayna hadduu qolada kale yahayna nebigaa nafaraya buuq baaba kacay waaba la isdili gaadhay reerka inay dabadda isugu baxaan oo isdilaan ayay ku dhowaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu aamusiiyey war bal jooga buu yidhi arrinka u kaadiya wuu dejiyey waxaan qadaayaadkan u tilmaamayaa waxaan u tilmaamayaa bini aadamku inuu isqabto bini aadam buu u yahay laakiin inagu maxaynu dadka kaga gedisanay mashkiladda timaada xalkeedaaba ka dhib badan mashkiladda lafteedii waxaynu xalka ka dhigno ayaa wuxuu ka dhib badanya mashkiladeedii soomaalida nin baa la dilaa xalku muxuu noqonayaa laba u soo diltay ama saddex u dil markaasay yana shan u dilayaan wixii laga cabanaya hal qof baa dhintay buu ahaa imikana 10 baa aakhire la qabadsiiyey maxaa xal ee la gaadhay markaa yani mashkiladdu qof bay taagnayd la dilay in xal loo raadiyo haddii xalku uu noqdo 10 ha loo dilo mashaakilkuubaa mashaakil lagu daray xal maaha ayuha alaxiba nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga digaya markaa dhexdeenna inaynu isdillo ayuu xadiid wuxuu ku yidhi ilaahay baa dhulkoo dhan ii soo ururiyey oo i tusay sidii tv-go kale loo tusay dabeetana waxaan arkay buu yidhi in ummaddaydu ay gaadhi doonto mashriq iyo maqribba inta lai muujiyey
waxaana laysiiyey buu nebigu yidhi kanziga cas iyo ka abyadkaaba kanziga cas iyo ka abyadka waa diinaarka iyo dahabka waa silfarka iyo goldka culamada qaarna waxay dhahdaan maahe waa labadii guri ee labada dowladood looga talin jiray beershiyana guriga cad baa looga talin jiray oo madaa'in ku yaalla kisrana guriga cas baa looga talin jiray haddaad tidhaahdo waa dahabkii iyo fidadiina labada qolana diinaar bay isticmaali jirtay qolana dirham bay isticmaali jirtay waa uun dowladnimada islaamku intay ballaadhataba waxaasoo dhami gacantayada soo geli doonaan buu nebigu yidhi dabeetana wuxuu nebigu yidhi xadiidkii aynu soo sheegnay ilaahay baan weydiistay inaan ummadayda abaara ku halaagin ama cadow dabadeed inaanu wada laynin oo bannaysanin baydadooda ilaahay waa iga aqbalay buu yidhi laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka diiday iyaga dhexdoodii ahayd xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasbi bacduhum bacda buu nabigu leeyay ilaa ay dhacday in iyaga dhexdoodu qaarba qaarka kale ay laayaan ama ay qafaashaan oo xidhaan waa dad muslim oo isxidhanaya gaal baa la yaqaanay la yidhaahdo waa la soo qabto waa la xidhaya muslim soo qabsanaya oo xidhanaya buu nebigu tilmaamaya adduunka markay iyagu isdilaan cadowgooduna wuu tumaya aakhirana naar baa ka horeysa waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannama khaalida fiiha wغadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima qof mu'mina qofka gardarro ogaan ugu dila 5 shay baa ilaahay yidhi oo ciqaaba buu leeyahy jahannamuu ku waaraya cadho ilaahay baa ku dhacaysa lacnad ilaahay baa ku dhacaysa cadaab weyn ayaa ilaahay u diyaariyay waxaasoo balaa buu leeyahy ilaa xad la gaadhsiiyey war toobadiisa ma la aqbalaya mise la aqbali maayo ilaa culammadu ay muranka keenaan bale nebigu wuxuu tilmaamay ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima labada muslimkii hadday seefta iskala hor yimaadaan ka la dilay iyo ka wax dilay labaduba waa ahlu naar buu nebigu yidhi waxay yidhahdeen ila rasuulkiisiiyo ka wax dilay garanee ka la dilayna kaana xariisan calaa qatli akhiihi buu nebigu yidhi waa laga ilrooraaday una dee isba inuu dilaa unbuu doonayay xabadunbaa kan ku hor dhacday ka kalena xabadda waa ridayo inuu ku dhuftaa buu doonayay ayuha alaxiba waxaan shareecadu bannayn baynu isku haynaa in badanoo inaga mida waxay tidhaahdaa waa difaacu nafs reer waliba difaacu nafsi buu ku jiraa iyo inuu isagu wadaadkooda u fatwooday xaggooda inay difaac ka yihiin qolada kale inay gardarrada wado waxaynu isku haynaana waxay u badan tahay wax shareecadu tidhi muslimku ka dhexeeya bal culimmada weydiiya wuxuu nabigu yihi almuslimuuna shurakaa fi 3 fi lkala'i walmaai wannaar dadka muslimiinta ahi daaqa iyo biyaha iyo dabkaba shuraakay ku leeyihin cidima sheegan karto adigu meesha difaacan karta meesha lagu yidhi difaace aada leedahay waa maxay dee waa beertaada iyo gurigaaga bannaankaa ma lihid reeraha iyagaa dega de kuma yeelanaysid reer kasta ha dego waa kale muslimka ka dhexeeya biyuhuna muslimka ka dhexeeya nabiyullaahi moxamed baa le almuslimuuna shurakaa shariik bay ku yihin magaalada daartaadu maad ku leedahay nin walba intuu xaq u leeyahay inta aanad reerkiinaba ka sheegatunbaad ka kalena ka sheegan kartaa gurigaaga iyo beertaada nin walba waad ka sheeganaysaa soo maaha intaa unbaad ka shisheeyaana ka sheegan karta idan isku reerka ahayn amaa inta kale muslimka way ka dhaxaysaa laakiin inagu reer walba intuu in qoobaartay ayuu wuxuu leeyahy halkaa hadday soo degaan reer hebel way soo xadgudbeene ha la laayo halkaa hadday reer hebel ka soo wareegaan ha la laayo acdo waa inuu dadka isku dayo inuu heshiis raadiyo islaax inuu ka dhex raadiyo islaax raadinta ilaahay wuxuu leeyahy laa khayra fi kathiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima waxa ay shirshirayaane faqayaan baa la yidhi
khayr kuma jiro ilaa iyo kii dadka sadaqa farayay iyo kii macruuf sama kale farayay samahay ka mid tahay haddana gaar baa loo sii saaro waxaa la yidhi aw islaaxin bayna annaas kii dadka heshiisiinayay haddii adiga kelmaddaada lagu heshiinayo waajib bay kugu tahay heshiisiin haddaad garanayso mid kelmaddiisa lagu heshiinayo dabada ka kaxee haddaad lacag ku bixin karayso in la heshiiyo ku bixi waayo ma magac ma doonaysaa sharaf ma rabtaa ma khalqigaad ka rabtaa mise ilaahay baad ka rabtaa horta markaynu qowlalada ka wada xumaynayna leenahay reerku ha isu soo baxo berri shir baynu halkaa isugu imanayna xoolaha la keena in wax iska dhicin maxaad raadinaysaa magacadee waxaad leedahay hala yidhaha waa ninkii maalintii reerka meesha fiican geeyey ilaahay agtiisa maxaad ka rabtaa markaa ma waxaad rabtaa bini aadamkan kula midka ahay inuu ku maamuuso oo waa hebelku yidhaahdo mise waxaad rabtaa in ilaahay ku maamuuso oad xagga ilaahay magac iyo maamuus ka yeelato ilaaha kownka abuurtay ee adiga ku abuuray ee janniya naar leh markaasaad magac ka doonaysaa mise dadkaad ka raadinaysaa haddaad kaa magac ka doonayso inaad wanaagga ka shaqaysaa buu ku jiraa ilaahay haddaad magac ka doonayso iyo maamuus inaad wanaag ka shaqayso ayuu ku jiraa laakiin inaad cumaamadda tuurto o u tuurtid in dadku isa sii dilo dadku waa kala gardaraan karaa dhib waa dhici karta laakiin dhibka xal baa loo raadiyaa waxaad moodaa ilaahay weynidiisa iyo cabsidiisuna inay nagu yaraatay dadka reerkaa ceeboobaya buu kuleeyahy oo ka warran haddaad ilaahay ku hor ceebowdo oo naarta gashid labada ceebood waa iyama bal horta haddii baan ka soo qaado inaad reerka ku dhex ceeboobaysaan oo la odhanaya nimankii reer hebel waxba iskamay celin baa layna odhanaya inanteenna la guursan maayo waxaasi waa beenaynu isku akhrino inan kasta waa la guursadaa laakiin dhibta jirtaa waxay tahay magacaad raadinayso nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkii uu awowga u ahaa ee xasan ibnu alcaliy oo yar baa maalin soo baxay dabeetana saxaabo isagoo la hadlayo wuxuu ku yidhi ina bnii haada sayid inankaygaa yar soo ma aragtaan waa sayid buu yidhi sayidku dee waa madax maamuus leh oo waa maxay walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa buu yidhi in ilaahay gacantiisa ku heshiisiiyo laba kooxood oo muslimiina oo waaweyn oo isdilayay dagaalkii dhex maray cali iyo cali iyo mucaawiya sidii u socday cali waa tii khawaarijtu dishay xasan baa noqday khaliifatu lmuslimiin sharci khaliifadii muslimiinta sharciga ahayd xasan baa noqday isagoo ciidamo wata oo la yidhaahdo ciidamadiisu 100,000 way gaari karayeen ayuu wuxuu qaatay heshiisku waa maxay inuu isagu madaxnimada ka daadego qoladan siiyo si ay dadku isu daayaan ninkan khilaafadii dhammayd ee islaamka ee uu amiirul mu'miniinka ahaa ayuu wuxuu ogolayay inuu kursigaba ka daadego sababtu waa maxay oo waliba la siiyo yuu siinayaa kanay istilayaan oo aan ka xoog badnayn oo ka ciidan badnayn oo xaqa kaga taagnayn ayuu siinayaa muxuu u yeelayaa liajli maslaxati lmuslimiin dhiigga muslimiintu muddadii dhowrka sannadood ee muslimiintu ay istilayeen iyagaa isku mashquul ahaa taaka in leegoo dhul oo kale may furanin markii heshiiskaasi dhacay kadibna istanbul bay saxaabadu ku dhimanayso dagaaladu gaadheen yani dadka muslimiinta iyo markaas ay in dhulkii ugu badnaa furteen ayuha alaxiba in qofkii faadilka ahee mudnaa uu ka daadego oo mafduul madax laga dhigo oo nin boqoroo muslim oo isaga si sharciya loo maamuusay uu kursiga ka daadego
oo nimaan cidi maamuusin uu siiyo oo uga daadego waanu ciidan la'aan ahaynina 100 kun oo askari uu wato wuxuu u yeelay inuu ilaahay agtiisa magac ka raadiyo idan ayuha alxibba ciddii ilaahay ka cabsanaysa ama isaga magac ka raadinaysa dhiig muslim kuma dheerayso kuma dhawaaqo marmarsiinyaha badan ee waa difaacu nafsina dadkun baa la isku dilayaa mid waliba wuu akhrisanaya kitaab la yidhaha difaacu nafsi mowqifkiinu waa inuu noqdaa siba dhallinyaro dagaallo ha u noqonina xaabe